arigi waa noo kale liif noo keentay madaxdii degmada waa noo timid waa nala joogaan kulligood arigina waa gudoona waa noo birbiraysan yahay waa mahadsan yihiin wixii noo soo dhibay wixii noo keenay iyo ragga iyaga dhan waa mahadsan yihiin iyo hay'adda noo soo dhigtay sharafta lahayd waxaan mahad u naqaynaa degmada Buurtinle iyo agagaarka ee dadka degan maalinta ciidda Adha waxaan salaam u direynaa oo kale dowladda Puntland ee Soomaaliya meel walba la joogo waxaana la soo gaarsiiyay ari gaariya degmada Buurtinle oo dhan 730 neef 200 waxa la geeyay Tuulo Jaran 30 xaarxaadka 100 degmada Buurtinle la keenay xoolaha sida waa la bireeyay ciidu adxaagi hay'adda Islaamka Relief waa nala joogaan systemkii loogu talagalay waa marsiinay sadaqadaas waxay gaaraysaa dadkii la baxay meel walba ay joogaan annaguna waa ka gudoona degmada Buurtinle haddaan nahay waxaan goob joogna oo markhaanti ka nahay in xoolihii la bireeyo oo aad aragteen dadkana saas loo gaarsiinay cuntadan hilibkaana waxaa loogu talagalay dadka masaakiinta iyo fuqarada guryahan ugu tagnay intaan hawshaan soo gaarin qof walba waa gaarsiinaynaa qof walbana wuxuu xaq u leeyahay buu helayaa waxaan soo dhaweynaynaa mar saddexaad iyo mar afraadba dadku sida fiican ay noo soo dhaweeyeen oo ay nooga qayb qaateen oo wax dhib iyo dhibaato aysan ka dhicin waxaan soo gaaray 230 neef oo ka timi Islamic Relief in soo gaarsiisay waxaan ilaahay uga rajaynaynaa ajar khayr qaba dadkii soo sadaqaystay annaguna ka maamul ahaan sidii la rabay ee ka Islamic Relief ahaan waxaan u gaarsiinay dadkii loogu talagalay jalan waxay heshay 200 harharna 30 bay heshay Buurtinlena 500 dadka waxa la gaarsiiyay xoolaha waxa la gaarsiiyay dadkii xaq u lahaa dadkii soo sadaqaystay ay ugu talagaleen kaamamkii iyo qaxootiyaashii dadkii danyarta ahay guryahan u istaagnay waxaan rajaynaynaa in ay si fiican uga maqsuudeen arrintaas ilaahayna dadkii soo sadaqaystay ajarkiisa ha siiyo annaguna ka maamul ahaan waan u hambalyeynaa ciidina soo gaarsiisay Islaamka Relief ahaan iyo dadkii hore ay ka timi Cabdulmajiid Abshir waxaan ka socdaa hay'adda Islaamka Relief Somali Program Puntland maanta waxaan qaybinaynaa seasonal project iyo Qurbaniga 2019